kulankii maanta ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo ilaaday buuq ay madaafiic dhinac socotay. labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta u madlanaa ansixinta wax ka bedel lagu sameeyay xeer hoosaadka doorashada guddoonka labada aqal iyo midda madaxweynaha. sidoo kale waxay u madlanaayeen inay ansixiyaan jadwalka doorashada guddoonka labada aqal. isbeddelkii ugu muhiimsanaa ee guddiyada qaabilsan doorashada guddoonku soo sameeyeen wuxuu ahaa in dhaqaalaha laga qaadayo musharaxiinta u tartamaysa xilalka guddoonka iyo midda madaxweynaha in la kordhiyey. xubnaha guddoomiyaasha u tartamaya waxaa laga dhigay lacagta laga qaadayo $20,000 oo isdiiwaangelin ah, halka ku-xigeenada laga dhigay $15,000. isdiiwaangelinta kursiga madaxweynaha ayaa iyadana laga dhigay $40,000 maadaama ay doorashada u dambeysay musharaxiintu isku diiwaangeliyeen $30,000. wax ka beddelka habraaca ku-meelgaarka ah ee doorashada ayaa cod la geliyey kaasoo xildhibaanadu si aqlabiyad lagu aqbaleen. kadib waxaa loo gudbay inay guddiyadu soo jeediyaan jadwalka doorashada guddoonka labada aqal. xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo madax ka ah guddiga doorashada golaha shacabka ayaa sheegay in ugu dambeyn ay 27 bishan soo gabagabayn doonaan doorashada guddoonka golaha shacabka, halka senator aadan cabdinaasir oo isna madax ka ah guddiga doorashada ee aqalka sare uu sheegay in 26 bishan la qabanayo doorashada guddoonka aqalka sare. markii ay jadwal ka dhammeeyeen labada guddoomiye oo ay xildhibaanadu sugayeen in jadwalka loo codeeyo ayaa waxaa xarunta Villa Hargeysa oo baarlamaanku ku shirsanaa laga maqlay jug culus. waxaa la xaqiijiyey in madaafiic lagu weeraray xarunta Villa Hargeysa ee uu maanta ku shirsanaa baarlamaanku, kadibna waxaa dhashay buuq xoog leh oo xildhibaanada dhexdooda ah. qaar xildhibaanada ka mid ah ayaa ku doodayay in la guda galo codeynta jadwalka maadaama ay jireen xildhibaano badan oo qabay in dib loo dhigo doorashada guddoonka labada aqal. laakiin xildhibaano kale oo diidanaa in jadwalka cod loo qaado ayaa buuqa uga sii daray. qaar ka mid ahaa xildhibaanada labada daraf ayaa ku sigtay inay gacanta isula tagaan golaha dhexdiisa, waxaana ay kaamirooyinku qabanayeen Mahad Maxamed Salaad iyo Cabdishakuur Cali Mire oo isbeegsanaya. guddoonka ku-meelgaarka ee labada aqal ayaa isaga dega mimbarka markay xaaladdu adkaatay, waxaana kulanka lagu kala tegay iyadoo aan jadwalka wax cod ah loo qaadin. xildhibaanada diidan muddada guddigu soo gudbiyey ayaa saxaafadda u sheegay inuu guddoomiye Dhabancad si aan munaasab ahayn u maareeyey kulankii maanta, waxayna ku baaqeen in la isugu yimaado kulan kale si jadwalka cod loogu qaado. balse xildhibaanada taageersan jadwalka degdegta ah waxay leeyihiin sidaan ayuu jadwalkii ku dhaqan galay oo wax ka beddelkii xeer hoosaadka doorashada ee la ansixiyey ayuu jadwalkiina raacay. xildhibaanada taabacsan dadejinta doorashada guddoonka labada aqal waxay qaarkood ku faaneen inay waayo aragnimo ku dhaafiyeen codayntii jadwalka dhinacii ka soo horjeeday. labada guddoon ee ku-meelgaarka ah ayaa isaga baxay golaha iyadoo buuq culus taagan yahay. maadaama ay kulankii labaad iyo midkii koowaad oo dood wata sidaan ugu dhibaatoodeen, waxaa la isweydiinayaa sida ay Dhabancad iyo Gaagaab uga baxsan karaan kulamada dhiman. codayn loo qaado jadwalka doorashada guddoonka labada aqal ayaa dadka qaarkii filayeen inay cabir fiican ka bixin lahayd labada daraf ee baarlamaanka iyo miisaankooda, laakiin lama bixin fursaddaas oo jadwalkii cod lama gelin. waxaa la eegayaa waxa hadda u furan kooxda diidan jadwalka degdegta ah. haddii uu jadwalku sidan ku maro, berri ayay bilaabanaysaa isdiiwaangelinta musharaxiinta raadinaysa guddoonka labada aqal. Fahad Yaasiin oo ah ninka doodan iyo dhibkan dartiis loo marayo kursigiisu weli wuxuu jiraa maxkamadda sare ee dalka. berri oo Talaado ah ayayna maxkamaddu gaaraysaa go'aanka kursigaas oo aan la ogeyn waxa uu noqon doono iyo sida ay dhinacyadu aqbali doonaan. buuqii ka dhacay gudaha baarlamaanka, duqayntii loo geystay Villa Hargeysa, guddoonka u muuqday mid xaaladdu ka tan badan tahay iyo garab sheegtay inay guulaysteen ayaa laga diiwaan geliyey kulankii maanta ee baarlamaanka. maxay kula taadiga